بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka jeedinayaa cabasho aan ka jeedinayo taliyaha saldhiga Madiina Cabdi Baasay oo nagu soo weeraray dhul ay lahaayeen ilmihii xiray qaasin ay ka iibsadeen agagaarka eelaboorka Villa Suldaan ka bacdi markay ogaadeen in la iibsaday dhulkaasna nalagu qabsaday taliyuhun oo amray in dhulka anagu aan ka baxno milkiyadiisa aan soo iibsanay ka bacdina aan ku wareejinay gudoomiyihii degmada furaha ka bacdina ciidamo la keenay gudoomiyihii degmadana furihii laga qaaday laguna wareejiyay taliyihii booliska iyo dad oo wato ka bacdina ciidamo xaafadeed ee aan la bisnayn oo meel ay ka tirsan yihiin aan garanayna furihii lagu wareejiyay ka bacdina aan ka codsanay in cadaaladana la horgeeyo maxkamadda la tago maxkamadana ay cid u xukunto ee dhulkaas ay la wareegto annagu dhulka waan soo iibsanay dukumeentiyadiisaan wadanaa sharcigiisaan wadanaa xoog inaan wax ku raadino ma rabno sharciyan wax ku raadinaynay degmadu ayadoo u jeedo taliyuhu saldhigaas u jeedo oo aan gudoomiyaha degmada hor fadhino oo nagu yiri dadkaanu si kale u socdaan oo wax bay dhacayaan annagu ma nihin dad wax dhacaya waana la dhacaya taliyuhu ma ahan annagu inuu wuxuu doonana yiraahdo waxaan ka codsanaynaa ammaanka inta ay qusayso arrinkaas in la soo farageliyo in badan oo ammaankaana waan wargelinay meeshina saakay weerar lagu soo qaaday dhulku waa la dumiyay marka in annagu gacmaha iska keenna dul saaraadaan oo hantideena nin xoog uu ku maamulo oo sheeganaya sharciyad sharciga maxkamadana uu ka bayro qoladii loo yeeray loogu yeeray maxkamadda ha tagtana hal isbuuc aysan waxba ka soo jawaabin maxkamadana aysan imaanin annagana aan maxkamadda dukumeentiyadiina sharciyadeena aan geynay ilaa haddana maxkamadda waxay agteeda ay tageen ama wixii loo diray waxay uga jawaabeen aan lahayn ayadoo intaas ay taagantaana saakayna ay yimaadeen bishu ay tahay 27 tageen dhulkii darbigii dumiyeen ciidamo keeneen taliyihina uu og yahay kulli tab ciidamadaas meesha la keenay oo sida noo sheegay ciidamo fara badan ay yimidaan lagu yiri darbigana waa la dumiyay annagu marka aan tagnana darbigii dunsana halkaas ugu tagnay dhulku waa dhul eelaboorka ku dhow waa dhul aan u diideyna fowdo iyo dagaal iyo xabad inay ka dhacdo oo halkaas annagu aan sharci darro aan wax ku sameeyno annagu hantideena ay tahay aan gacmaha saaran haddii hantideena noqoweyso annagu dambiilayaalana laakiin dadka boobka wata ee dhaca wata ee falsificationka wata ee dukumeentiyada beenta wata ee halkaas soo istaagay taliyihina uu leeyahay ayaga leh waxaan ka codsanaynaa laamaha ammaanka inayna wada hor fadhiisiyaan cidii la haatana dhulkaas lagu wareejiyo haddaan leenaa sida ugu dhaqsiya badanna lagu wareejiyo haddaana lahayna annagu ma lihidiina la yiraahdo annagu ma doonayna meeshaas in dagaal ka dhaco in dhib ka dhaco waa soona eelaboor waa soonihii ammaanka ahaay laakiin in maalin walba ciidamo aan labisnayn oon dawlad u shaqayn inta lagu daadiyo la yiraahdo dhulkay hayaan ammaankiisa ayagaa sugaya taliyihii saldhigan oo furuhu u dhiibto waxna qabanaya maahan waa in furahaas laga qaadaa cidii ay qusaysan ay la wareegtaa arrinkaasi cabashadaasaynu nahay haddii la leeyahay arrinkaasi laga gaabsadana hadda wixii ka dhacay taasi kulleed wax la wada moogaya ma naga doonaan annagu ma doonayna inaan xoog wax ku raadino waxaan doonaynaa sharciyad inaan wax ku raadino ilmaha agoonta reer xiray qaasina dhulkaas iska leh haddii la haawahayaana cid ku sheegan cid daba joogto kala male sharciyada dukumeentiga wuxuu jiraa maxkamadda sare ha tagaano dadka maxkamadda leh dadka ay qusayso gudoomiyaha degmada waa wargelinay furiyaan ku wareejinay gudoomiyaha waxaan niri adaan degmadaadii ay tahay sharciyadna marsi furiyaan u wareejinay ka bacdi waxaan noo soo yeertay taliyuhu wuxuu yiri gudoomiyaha degmada wuxuu yiri aniga waa la iga qaada furihii arrinkaasna midaan gara kara maahan furihiin waa laga wareeg gudoomiyaha degmada hadii furihi xoog looga qaadanayo annaga in la maquuniyo la rabo waxay naqanayaan handadaad annagu laakiin handadaad ma yeeli doono cidina ma handadi karto sharciga u hogaansanahay sharciga ciidan u hogaansanayna waa la arki doonaa sharcigu meel hana kala marsiyo haddii la kala marsiyo waayana hadda wixii dhaca annagu kulli taba cidna ku laguma eebsan doono waa wax la wada maqli doono waa wax la wada ogyahay waa waxaan media u sheegayno waa waxaan TV-yada ka sheegayno nimanka iska daba wareegaya dukumeentiyada beenta wata ku qabso ku qadimaysid in meelna la kala marsiyo ayaan u baahanaa nin walba wuxuu u sheegeen 10 kun oo wareegayso markaas askari walba wuxuu ku leeyahay 10 kun oo la sheegay meesha taagan war 10 kun maxaa lagu sheegay ma dhulkaad leedahay ma hantidaad leedahay ma ninka xoolaha la marka in annagu hantideena ka shaqaysanayna aan ka shaqaysan weyno taliyihii saldhigan uu shaqadii naga joojiyo gudoomiyaha degmada uu ka soo qaado waxna qabta maahan waan ogeysiinay qaybo badan oo amniga kamid ah waa ogeysiinay degmada waa ogyihiin dhammaantood
intaas waxaan codsanayaa arrinkaas in lagu soo baxo annaga hadda wixii ka dambeeya kulletaba gacmaha isma sii saara doono xoolihiina xoog nin aan ku qaato xoog nin ha lagu sii bilaa sharci darraa ma yeeli doono wixii ka dhacaahe adhowda mid annaga aan dembigeeda geysana ma naqon doonaan waa wax caalamka iyo meediyaha iyo meel walbaaba ay ogaa doonaan waxaan leenahay dad badan oo sharci dejiyaal ah ogaa doona oo maxkamadaha joogo haddaynu qaldanna waa nala qaban doonaa haddiina laga qaldanaya waxaan jecelnaha sida ugu dhaqsiyaha badanna in noola kala saaro waxaan ka codsanaynaa taliyayaasha amniga gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka taliyaalka booliska dhammaantood arrinkeenaas inay kusoo baxaan haddii aan qaldanana qabtaan haddiina laga qaldan ayna qabtaan hal isbuuc ka badana maxkamadda loo fadhiyaa maxkamadda lama aadin dhulkiyaa la aaday in la jajabsho baldoosarra la keensado derbiyadii la jabsho qayb ka mid a la dumiyey marka hantideena in annagu nin dudunsado oo xoog ninna oo ugu qaado oo la yidhaha dadkii oo dhan nin walba 10 hoosta laga geliyey waa maxay 10kan lala wareegayo waa waxaan annagu fahmi weynay askari walba meel tagan waxaa la leeyahay 10 kun oo dollar lagu siiyaa dhulka anaa iskale ii ilaali war annagu ma nihin dad xoolaha shala xamar yimid ama jooga ma nihin haddaan qaldanna hana la qabto sharcigu hana qabto haddiina laga qaldan yahana sida ugu dhaqsiibana nooga qabto wabillahi tawfiiq annagan dhulkan gacanteena wuxuu kusoo wareegay 2 bilood gudahood dhulka marka annagu soo iibsanay la ogaada dhulka annagu inaan soo iibsanay oo aan nootayooyinka aan kala soo wareegnay si sharci ah aan kula soo wareegnay qaxooti degan aan ka saarnay lacag siinay ayaga ay ka baxeen la ogaaday waxaana lagu yimid ku qabso ku qadimaysid marka aan raacdaynay 2 nin oo la wada noola keenay oo nin uu leeyahay ninkaana dhulka iska leh ninna uu yahay garwadeen soo garteen ma ninkaasi marka aan war haddii aad wax nagu sheeganayso kuma diidanin shaatigaada la isku sheegan karaa sharciga nagay ma kula aadayo sharci mana u socdo wuxuu isku hadlaynaa ninkaas taliyaha saldhiga oli gudoomiyaha degmada markuu u tagan 2 warqadood bis oo warqadaha u geeyay taliyaha degmada markaan u tagnay dokumentigan waa kanaana gudoomiyaha wuxuu yiri aniga arrinkaasi markaan ka baxay gacantiisa ka baxay oo khudbadii ugu dambeysay oo na siiyay annagu intaas ay ahayd taliyaha saldhigan la wareegay dhulkii